hooyo qalbigeeda dhowr hadal murugaysan ha dhihin niyadana ha ka jebin halka maanta aad joogto darajada aad leedahay hooyo ayaa ku soo gaartay waa qiso xanuun badan oo aanan jecleen inaan u soo gudbiyo saaxiibadeyda ku xiran barta YouTube-ka ee Socdaal 24 laakiin waxaan rabaa in saaxiibo badan tusaale ay u noqoto sheekadan waa mid ka mid ah qisooyinka ugu xanuunka badan aadamaha inta uu nool yahay mar walba wuxuu akhristaa sheekooyin murugo badan haddii ay noqon lahaayeen kuwo inta badan uu wax ka faa'iido ama kuwo inta badan waxyaabo murugo badan uu ka barto wargeysyada iyo baraha bulshada maalin walba waxaa lagu soo qoraa sheekooyin aad u xiiso badan kuwaas oo inta badan ee dhalinyarada Soomaaliyeed siyaabo badan ee wax ugu faa'iidaan marka aan ka hadalno ixtiraamka dhanka waalidka waa waxa ugu qaalisan ee hooyona mar walba waxa ay jeceshahay wiilka ama gabadha ay dhashay mar walba inay noqdaan labada qofood ee ugu horeeya ee dunida horumar iyo hiigsi ka gaaro hooyo walba oo ku nool dunidan mar walba waxay ku riyootaa in wiilkeeda uu noqdo mid ka mid ah hogaamiyaasha dalka sidoo kale hooyo walba waxay ku riyootaa in gabadheeda ay noqoto dhakhtarad sidoo kale ay noqoto qof bulshada magac iyo maamuus ka leh inta badan waxaa dhacdo dhalinyarada Soomaaliyeed marka haasaawaha ama xiriirka ay sameynayaan in ay isguursadaan oo kaliya laakiin dhowr su'aalood lisma weydiiyo oo ay kamid yihiin adiga hab dhaqameedkaada waalidka sida ula dhaqantaa waalidka halkuu ka jooga darajadee waalidka joogtaa booskee hadalla noocee ah ayaad u adeegsataa hooyo inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed isma weydiiyaan laakiin waxa uu muuqda ayaa waxa uu yahay jaceylka dhexdooda ka jiro sidii ay ugu guuleysan lahaayeen warbixinta maanta ay idiin soo gudbinayo waxay tahay sheeko xanuun badan oo ku dhacday hooyo ayaa dhashay wiil kadibna waxa uu guursaday gabadhii marka uu guursaday waxa uu dhashay 2 caruur ah gabadhii iyo wiilka iyo hooyada waxay dignaayeen guri aad u yar inkastoo nolosha marxalado kala duwan la soo marayo wiilka marxalad adag ayuu ku noolaa muddo kadibna waxa uu noqday wiil noloshiisa in badan ay kaafisay maadaama hooyada ahayd hooyo mar walba u duceyso nolosha oo sidaas ahayd mar walba wiilka gabadha uu soo guursaday wiilka marka uu shaqo aado gabadha waxay waalidku la dhaqmi jirtay si aan naxariis lahayn inta badan waxay dhihi jirtay hadal aan u qalmin hooyo mar walbana hooyada waxay ilaali jirtay labada qofood waxyaabaha ka dhaxeeyo hadallada la dhihi jiro hooyo waxba kama soo qaadi jirin oo inta badan waxay u muujin jirtay dareen marka uu maqlay wiilka in maalin walba xaaskiisa ee hooyadiis u gafto hadal xanuun badan ee dhahdo mar walba waxa uu raaligelin u sameey jiray xaaskiisa asagoo dhihi jiray karaale noqo waa waayeel iyo waxyaabo kale ayuu dhihi jiray sidaas oo ay tahay ilaa waa hooyo wax dhashay mar walba waxay jeceshahay hooyada wiilkeeda wanaageeda iyo reerka sidoo u dhisan yahay nolosha si walba siday ahaataba hooyada inta badan waxay ahayd sidii qof shaqaale oo kale ay guriga ugu shaqay jirtay waxayna heesay labada wiil oo dhalay wiilkeeda ayadoo u labisi jirtay mar walbana u xiri jirtay dharkii ugu qaalisanaa sidoo kale waxay u sameey jirtay cuntada ay ugu fakari jirtay sida qof ayada ee dhasho kale labadii wiil waxay noqdeen laba wiil aad u qurux badan inkastoo lahay ay kurismaatiin iyo waxyaabo kale ayaa lahay sidaas oo ay tahay mar walba aadayaan goobaha damaashaadka maamada waxaa looga tagi jiray labada wiil sida qof shaqaalaha oo kale ayaa caruurta u hay jirtay labadooda damaashaad iyo dalxiis kama dhamaan jirin hadallada iyo dharka hadallada goosgooska ee mar walba maamada la dhihi jirana dhagta jalaq uma sii jirin sidaas oo ay tahayna waxa ay sameey jirtay mar walba wanaaga iyo wiilkeeda sida u rabto mar walbana waxay xiri jireen dhar noocu ugu dambeeyay wiilka iyo xaaskiisa sidaas oo ay tahay maalmaha kimida waxaa dhacday in ay aadaan meel dalxiis ah ama dukaan lagu iibiyo waxyaabo kala duwan markii dukaanka ay aadeen waxaa dhacday in maamadii ay dhahdo waan ku raacayaa maanta waxaan u baahanahay dalxiis inaan soo lagu baxsado guriga waan ku caajis hooyadii ayaa markaas dhahday waxaan u baahanahay maanta inaan raaco markii waa ay soo wada baxeen waxay imaadeen dukaan lagu iibiyo dahab iyo waxyaabo kale wiilkeedii gabadhii uu qabay gabadhii waxay iibsatay dahab qaali ah lacagtiisana aad ayuu u fara badneed sidoo kale waxay iibsatay waxyaabo fara badan oo dukaanka yaalay markii gabadhii intaas ay iibsatay wiilkeedii ayaa soo haray sidoo kale waxyaabo fara badan ayuu iibsaday
markii wiilkii sidoo kale waxyaabo fara badan oo iibsaday labadii wiil oo dhala ayaa soo haray sidoo kale waxyaabo fara badan ayay iibsadeen markaas ayuu ku dhahay waxay aarabtiin dukaanka qaata alla xanuun badana ciilka adduunyada iyo halka darajo ee naga mareyso hooyo sidaas loo galmiyo dareen ku noqday hooyadii waxa ay ka heshay fargashi aad u qurux badan fargashiga ayaa ninkii dukaanka u soo qabtay waa ay gashatay hadalkii ugu xanuunka badnaa wuxuu ahaa markii ninkii dukaanlaha uu dhahay faraantigii lacagtiisii ayaan rabaa maamadii ayuu fiiriyay wiilkii waa hooyadiis hadal cariisan ayuu kula hadlay gabadhii xaaska ahayd ayaa soo booday markaas ayay ku dhahday maamo sidee yeelaysaa duq waayeel ayaa tahay yaad isku qurxinaysaa maxaa dunidan iskaga qurxinaysaa wiilka ayaa soo booda ku dhahay hooyo caruurta ayaad noo heesaa faraantiga maxaad ku falaysaa iska dhig qof waayeel ayaa tahay hooyadii aad ayay ugu cadhootay hadalka wiilkeeda uu dhahay markaas ayay dhahday sida aad adduunka iga qarisay adigana allaha kaaga qariya naarta wayna u sii duceysay warbixintan maanta waxaan ka baranay sida waalidiinta ula dhaqmaan dhalinyarada mar walba waalidka iyo saaxiibka labaha ku kala ahaadaan saaxiibada ku xiran barteeda YouTube-ka socdaal 24 waxaan ka codsanayaa qaybta commentiga qoraal ahaan inay noogu reebaan si saaxiibo adigoo kale commentigaada quruxda badan ay u akhristaan anigu waxaan ahay saaxiibkii mahad socdaal mar walba waxaa idiin soo gudbi doonaa warbixino aad wax badan ka faa'iidi doontiin saaxiibayaal soo dhawaada sidoo kale saaxiibada muqaalkaan share u dheh si saaxiibo adigoo kale aan u helno waad ku mahadsantahay daawashadan